hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa warqad gaar ah oo codsiga u diray madaxweynaha dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib culays dhanka dhaqaalaha ah oo qabsaday hogaamiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xukuumaddiisu ay in badan oo kamid ah ciidamada ka dagaalamaya calmiskaad u weeday mushaaraadkoodii saddexdii bilood ee la soo dhaafay guutooyin muhiim ah oo ka tirsan ciidamadan ayaan helin mushaaraadkooda taas ayaana keentay in qaybtooda ay ka soo laabtaan dibna uga soo baxaan buuraha calmiskaad ayna xirtaan wadooyin muhiim ah oo dhaca aagga magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland oo xiriirisa magaalooyinka kale inta badanna maciishadu ay ka soo degto ciidamadan oo saaka oo ugu dambeysay xirtay wadooyin muhiim ah ayaa ka cabanaya mushaar la'aan ilaa 3 bilood waxayna xaaladan culayska ku sii kordhisay Siciid Cabdullaahi Deni oo markii horeba u muuqday in uu jahwareer siyaasadeed lugaha kula jiro hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la sheegay in xubno ka tirsan saaxiibadiisa siyaasaddu ay u soo jeediyeen ayna kula taliyeen in warqadan codsiga ah uu dirsado dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya si ay u bixiso qaar kamid ah mushaaraadka ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland waxana arintan Siciid Cabdullaahi Deni sida ila xogogaal ah inoo xaqiijiyeen ku dhiirigeliyay kadib markii dowladda Soomaaliya ay $700,000 ku taageertay Somaliland si loogu gurmado dadku abaaruhu ay saameeyeen ee gobolka Awdal Siciid Cabdullaahi Deni lama oga waxa uu ka filan kara madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo jawaabta dhanka dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya ka imaan karta balse waxa xaqiiq ah inuu ku guuldareystay bixinta mushaaraadka ciidamo uu galiyay hawlgallo adag oo buuraha laga fulinayo maleeshiyaadka kala duwan ee qaybta ka ah ciidamada Siciid Deni ayaa waxay bilaabeen in wadooyinka ay xirtaan aagga xarfo 14 bari ka badan ayaa lagu haystay gaadiid kuntumeeye ku dhow oo inta badan agabyo kala duwan ka soo qaaday dekada magaalada Boosaaso taas oo culays dhaqaale ku sii noqotay dowlad goboleedka Puntland waxa uu muuqdaa hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland in uu u maaraala yahay ciidamada dowlad goboleedkaasi ciidanka daraawiishta ayaana dhibaato weyn ku qaba mushaaraad aan la isku haleyn karin ciidamada kaliya ee sida tooska ah mushaaraadkooda u hela dowlad goboleedka Puntland waa kuwa loo yaqaan PMPF ee Imaaraadka Carabtu ay tababareen kuwaas oo isla dowladda Imaaraadku ay taageero dhaqaale siisa Siciid Cabdullaahi Deni hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu iska dhaadhiciyay ciidamadan mushaaraad ugu helo in uu galo buuraha Calmadow isla markaana halkaas laga bilaabo qodida macdanta dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa leh qorshahan rasmiga ah balse waxa ka shaqeynaya calooshood u shaqaystayaal kala duwan oo Afrikaan u badan xagga dhanka ciidamada iyo sidoo kale ilaaladana ay qaadan doonaan calooshood u shaqaystayaal la sheegay inay yihiin Colombia dadka degan deegaanadaas ayaa si adag uga biyadiiday in la dhaco isla markaana si aan sharci ahayn loo qaato macdantooda khayraadkooda iyo sidoo kale dahabkooda waana culays kale oo Siciid Cabdullaahi Deni ku qasbaya in hadda uu u qayladaan dirsado dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya oo uu muddo kula dhaqmayay siyaasad la yaab leh oo lagu macneeyay iyo politics